maanta waxaynu ku bilaabi doonaa xiisada Iran, Israel iyo Mareykanka. Taliyaha ciidamada Iran Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay in Tehran ay u aragto hadallada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ee ku saabsan mudaharaadyada ka socda dalkaasi kuwa qatar ah. Hadalkan uu maanta jeediyay Hatami waxa uu carabka ku adkeeyay in Iran aysan u dul qaadan doonin sii socoshada hanjabaadaha iyada oo aanu jawaab la bixin. waxa uu intaasi ku daray in dalkiisu uu arko kordhinta hadallada cadowga ee ka dhanka shacabka Iran in ay tahay qatar, isla markaasina uusan aqbali doonin in ay sii socdaan iyada oo aanu jawaab adag laga bixin, sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Faris. Hadalladan ayaa yimid kadib markii guddiga sare ee difaaca Iran ay muujiyeen suurtagalnimada in tallaabooyin hordhac ah la qaado kuwaasi oo loo arko difaac sharci ah. bayaan uu guddigu uu soo saaray talaadadii ayaa waxa uu ku cambaariyay waxa uu ku tilmaamay kordhinta hadallada hanjabaada iyo faragelin lagu hayo dalka, isaga oo si dadban u tilmaamaya hanjabaadihii Trump. guddigu waxa uu adkeeyay in amniga iyo madax bannaanida Iran ay yihiin qadcas oo aan la jabin karnin, isaga oo ka digay in weerar kasta ama sii socoshada dabeecadda colaadeed lagu wajihi doono jawaab ku habboon, adag oo go'aan leh. arrintan ayaa timid kadib markii Trump uu maalmahanba uu ku hanjabayay in uu si military u faragelin doono Iran haddii mudaharaadayaal la dilo. Netanyahu ayaa dhankiisa muujiyay taageero u hayo mudaharaadayaasha Iran. guddiga sare ee difaaca Iran ayaa la aasaasay kadib dagaalkii 12 maalmood socday ee u dhaxeeyay Iran iyo Israel oo Mareykanku uu taageerayay, waxaana uu hoos yimaadaa golaha sare ee amniga qaranka si loo mideeyo go'aan qaadashada difaaca kadib weeraro lama filaan ah oo ay Israel iyo Mareykanku ay ku qaadeen xarumo military iyo kuwa nuclear. isla warka Iran la xiriira haddii aynu ku sii socono, garsoorka dalkaasi Iran ayaa maanta shaaciyay in la fuliyo xukun dil ah oo lagu riday nin lagu eedeeyay inuu u basaasayay Israel. wakaalada wararka ee Mizan ayaa waxa ay sheegtay in ninkaasi lagu magacaabo Ali Adristani la dilay. xukunka dilka ah ee lagu riday Ali Adristani oo lagu helay dambiga basaasnimo uu samaynta Mossad ayaa la fuliyay kadib markii maxkamadda sare ay ansixisay iyo dhamaystirka habraacyada sharciga ah ayaa ay tiri wakaaladu. Iran ayaa waxaa sanadihii la soo dhaafay ay fulisay dhowr qof ay ku fulisay xukunno dil ah oo la xiriira in ay xiriir la lahaayeen hay-adaha sirdoonka Israel, si gaara Mossad, iyada oo ka dhex shaqaynayay gudaha dalka Iran, taasi oo ay dowladda Iran tilmaantay inay tahay mid ay ka jawaabayso, waxaana ay tilmaantay inay tahay mid dagaal qarsoon ah oo muddo 10 sano ah labada dhinacba u dhaxaysa in la soo farageliyo oo ay Iran doonayso inay si adag uga jawaabto. bilihii la soo dhaafay, mas'uuliyiinta Iran waxa ay ku dhawaaqeen xarig iyo xubno dil ah oo lagu riday dad lagu helay basaasnimo. bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, baarlamaanka Iran waxa uu meel mariyay sharci cusub oo adkeynaya ciqaabta kuwa la xiriiriyo sirdoonka shisheeye, gaar ahaan Mareykanka iyo Israel. waa berigii Juun 13 Israel iyada oo taageero dadban ka helaysa Mareykanka ayaa ay qaaday weerar ballaaran oo ka dhan ah Iran, kaasi oo lagu bartilmaameedsaday xarumo nuclear iyo kuwa military, laguna dilay taliyaal military iyo saynisyahano nuclear, sidoo kalena lagu weeraray xarumo rayid ah iyo kuwa qaran oo ay ku jiraan xarunta telefishinka qaranka ee Iran. Iran ayaa waxay kaga jawaabtay gantaalo iyo diyaarado drones ah oo ismidaamiya, kuwaasi oo lagu harqiyay magaalooyin Israa'iil ah, si gaara saldhigyada ciidanka iyo xarumo xasaasi ah, waxaana ay sababeen dhimasho, dhaawac iyo burbur. Mareykanka oo ah xulafada ugu weyn ee Israel ayaa isna fuliyay duqeymo ka dhan ah xarumaha nuclearka ee Iran ka hor inta uusan dhaqan gelin xabad joojinta bishii Juun 24. Iran waxay kaga jawaabtay duqeyn ay la beegsatay saldhigga ciidan ee Mareykanku uu ku leeyahay dalka Qatar. markaana Suuriya, iyada oo ay maantay magaalada Xalab ay ka jirto xiisad aan caga adag ku taagnayn kadib markii dagaal shalay iyo xalay dhexmaray magaalada kuna dhexmaray ciidamada dowladda Suuriya iyo kuwa SDF, ayaa war goordhaweyd ka soo baxay waaxda howlgalka ee ciidamada dalka Suuriya. waxay ku sheegtay in dhammaan goobaha military ee ay leeyihiin ciidamada SDF ee ku yaala xaafadda magaalada Xalab ay yihiin bartilmaameed sharci ah
kadib markii madaafiic cusub oo ISDF ay ku garaacday xaafad ay dad rayid ah ay ku nool yihiin iyo sidoo kale isku hormaadyo dhexmaray labada dhinac. guddiga howlgallada ee ciidamada ayaa waxaa bayaanka ay ku sheegeen in dhammaan saldhigyada military SDF ee ku yaala xaafadaha Sheekh Maqsuud iyo sidoo kale Ashraf leh ee Xalab ay yihiin bartilmaameed military oo sharci ah oo ay ciidamada Suuriya ay qaadi karaan, taasi oo ay ku sababeeyeen kororka weyn ee weerarada ay SDF ay ku qaaday xaafadda magaalada Aleppo iyo sidoo kale falal ay ku tilmaameen xasuuqyo lagula kacay dadka rayidka ah. bayaanka ayaa waxaa intaasi ku daray in ciidanku uu ugu baaqiyo shacabka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Sheekh Maqsuud iyo sidoo kale Ashrafil in si degdeg ah ay uga fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada SDF si loo yareeyo khatarta ka dhalan karta weerarada military. dhacdadan ayaa timid kadib markii talaadadii ay SDF madaafiic iyo qoryaha culus ay ku garaacday xaafado ay dad rayida ay ku nool yihiin iyo sidoo kale bar ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Suuriya ee ku yaala Aleppo. weerarkaasi waxa uu sababay dhimashada 5 qof oo ay ku jiraan 4 qof oo rayid ah, kuwaasi oo 2 ka mid ay ahaayeen haween halka 21 kale ay ku dhaawacmeen. sidoo kale marka laga soo tago khasaaraha rayidka hal askari oo ka tirsan ciidamada Suuriya ayaa la dilay, 5 kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn oo drones ah oo ay kooxdu ay ku qaaday goobo ay ciidamadu ku leeyihiin gudaha magaalada Xalab. xaaladda amni ee magaalada ayaa weli kacsan iyadoo dhinacyadu ay sii wadayaan isdhaafsiga eedeymaha iyo digniinaha la xiriira bartilmaameedsiga goobaha military ee ku dhex yaala xaafadaha. ayaa soo ururiyay xogahan oo qadka ku jira. maxamed inoo bilow warbixintan. madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa sheegay in wadankiisa uu ku noqon doono mashruuca lagu sameynayo F-35 oo lagu xoojin doono xiriirka Turkiga uu Mareykanku la leeyahay iyo sidoo kale amniga wadamada ku jira NATO. madaxweynaha Turkiga hadalkiisan ayaa soo baxaya iyadoo qoraal looga jawaabay ku soo baxay warbaahinta reer galbeedka qaar ka mid ah. Erdogan ayaa ku tilmaamay Turkiga in laga reebo barnaamijka F-35 sababo la xiriira in uu iibsaday agab military ka iibsaday wadanka Ruushka, in aysan ahayn go'aan cadaalad ah. wuxuuna ku nuxnuxsaday in asaga shakhsi ahaan uu ku wargeliyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar ay kulan ku lahaayeen aqalka cad bisha September 2025 arrintaasi. waa gartay. marka muxuu faahfaahin oo ka bixiyay oo in xiliga la keenayo diyaaradahan oo waliba xitaa la ogsoon yahay in lacagtooda ay sii bixiyaan Turkidu. Erdogan ayaa sheegay in dowladda Turkiga diyaaradahaasi loo keeni doono oo mar hore ay lacagta bixiyeen, dibna loogu celin doono barnaamijka lagu sameynayo diyaaradaha F-35. waana arrin muhiima oo aad iyo aad Turkiga uu xiiseynayo. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Trump uu ku soo noqon doono xilka madaxtinimada oo hore uu abuuray fursad in xiriir uu la sameyn doono Turkiga iyo dowladda Mareykanka si horumar looga gaaro arrimo qaran iyo arrimo aas u ah horumarka labada dal. marka la fiiriyo suuragalnimada ah gadashada F-16 diyaaradihii ahaa ayaa Erdogan uu ku tilmaamay in Turkiga uu filayay in xaaladahaasi ay noqon doonaan kuwa ku xiriirsan khadka wada shaqaynta wadamada NATO. wuxuuna soo xigtay in heshiiska lagu iibinayo Europe looga iibinayo diyaarada Eurofighter la yiraahdo wadamada Britain iyo xulufada ayadana ay xisaabta ku jirtay. wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa sheegtay bishii la soo dhaafay in Turkiga iyo dowladda Mareykanka wada xaajood inay ka leeyihiin cunaqabataynta Mareykanka uu ku soo riday iyo caqabadaha uu ku hor istaagay dowladda Mareykanka ay ku hor istaagtay Turkiga inuu ku biiro dalalka ka shaqeynaya mashruuca F-35 diyaaradaha dagaalka. hase ahaatee wax isbedelay ma jiraan marka la fiiriyo in wadanka Turkiga uu Ruushka ka iibsaday difaaca cirka ee S-400 loo yaqaano
waa gartay haddii markii hore arrintu ay ka dhalatay iibsigaasi miyaa la xaliyay arrintii oo ma Turkiga ka tanaasulay mise Mareykanka ka tanaasulay oo doonaya in diyaaradahaasi laga iibiyo Turkiga ama la siiyo iyadoo ay yaalaan weli gantaaladii S400 muranka labadan dal Mareykanka iyo Turkiga oo labadaba ka tirsan ururka NATO waxa uu socday laga soo bilaabo ilaa 2019 markaasoo dowladda Mareykanka ay ka bixisay wadanka Turkiga diyaaradahan ay sameysay shirkad diyaaradaha Lockheed Martin mashruuceeda wadanka Turkiga kuna soo rogtay cunaqabatayn maadaama Turkiga uu iibsaday nidaamka difaaca cirka S400 loo yaqaano taasoo dowladda Mareykanka u tixgelinaysa inuu khatar ku yahay diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa beenaynaya arrintaas wuxuuna sheegayaa S400 marnaba lagu rakibi maayo laguna xiriirin maayo nidaamka difaaca cirka ee NATO dowladda Mareykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay Turkiga xilliyadii ugu dambeeyay doorkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xukunka hayay iyadoo looga hortagay cadawga Mareykanka qaanuun la yiraahdo oo magaci marka number la soo gaabiyo la yiraahdo CAA TSA oo Congress-ka uu gudbiyay 2017 oo looga soo horjeedo in Turkiga nidaamka difaaca cirka Ruushka maadaama uu iibsaday xilligii madaxweynaha wadanka Mareykanka uu ahaa Barack Obama ay u diideen in ay ka iibiyaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka wadanka Turkiga waa gartay bal dib noogu celi lacagta Turkiga ay bixiyaan intay qiimaheedu ahayd iyo sida heshiiskaasi loo galay Turkiga ayaa muddo dheer geed gaaban iyo geed dheer u fuulay in uu ku soo biiro mashruucan laga reebay wuxuuna kala shaqeynayay dowladda Mareykanka iyo dalalka NATO arrintaasi Erdogan ayaa sheegay Turkiga inuu mar horeba bixiyay lacag gaaraysa 1 bilyan iyo 400 milyan ka hor inta aan laga joojin ka qayb qaadashada mashruucan diyaaradaha F-35 2019 sanadka markuu ah 2017 Turkiga ayaa go'aansaday inuu iibsado gantaalka S-400 yiraahdo uu ka iibsado wadanka Ruushka kadib markii muddo dheer ay dalbanayeen in laga iibiyo nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka Patriot yiraahdo oo dowladda Mareykanka heshiiskaasi uu burburay wixii ka dambeeyana Turkiga wuxuu raadsaday bedel waa gartay maxay tahay marka sababta Turkiga horta u doonaya diyaaradahan Turkiga ayaa waxa uu daneynayaa inuu helo diyaaradan F-35 la yiraahdo waxaana riixaya sababo badan oo ah in uu militarigiisa casriyeeyo tartan ka jira xagga gobolka istiraatiiji ahaan in uu noqdo mid kamid ah dalalka NATO kuwa ugu awooda badan xagga cirka iyo ciidanka cirka ee wadanka Turkiga ay wadaan inay aad isugu haleeyaan diyaaradaha duqoobay oo F-16 ah dowladda Turkigana waxay u aragtaa jiilka shanaad diyaaradaha loo bixiyay F-35 inay muhiim u yihiin difaaca nidaamka cirka ee wadanka Turkiga oo ay diyaarada lagu casriyeynayo ciidanka cirka ee wadanka Turkiga diyaaradahaas ayaa waxay leeyihiin inay ka dhuuntaan raadarada waxayna leeyihiin waxa loo yaqaano agab casri ah awoodna waxay u leeyihiin in ay nidaam difaac cir oo aad u adag ay ka gudbi karaan Turkigana howlgaladiisa xagga cirka ayaa horumar weyn sameynaya haddii diyaaradahaas helo marka la fiiriyo xagga gobolka iyo isbedelada ka jirana waxa weeye arrin muhiim ah oo tartan ayuu Turkiga ku jiraa wadamo dhowr ah oo Turkiga daris la ah qaar ka midana ay ka soo horjeedaan ayaa qorsheynaya haystana qaar ka mid ah jiilka shanaad ee diyaaradahaasi 35 Israa'iil haddaba waxa ay leedahay diyaaradaha F-35 yiraahdo halka Greega ay ku dhawaaqeen qorshe ay doonayaan in diyaaradahaas ku iibsadaan Turkiga ayaa waxa uu ka baqayaa in uu mashruucaasi banaanka sii ahaado oo laga yaabo in ay wiiqdo nidaamkiisa difaaca cirka iyo ciidankiisa cirka isbedelka ku imaanaya xagga awoodda isu dheelitirnaanta xagga cirka ayaa walwal ku haya gaar ahaan markay ay timaado badda Mediterranean-ka iyo bariga dhexe waaya maxamed